aynu ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in golaha codku kalsoonida kala noqday xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre isagoo ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub. Gudoomiyaha ayaa sheegay in cod la qaaday kadib 170 xildhibaan ay u codeeyeen in kalsoonida lagala laabto xukuumadda halka ay diideen 8 xildhibaan oo kaliya. Xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhiga baarlamaanka ayaa diiday doodda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyagoo ku tilmaamay go'aanka ridista xukuumadda mid ku timid gudoonka kaliya isla markaana aan sharciyad haysan. Haddaba xogtii u dambeysay waxa si toos ah khadka ugu jira wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim Cabdiraxmaan Dhimbil arrintan waxay ahayd soo boodo lama filaan maxaa yeelay ajandaha kulanka waxa uu ahaa ka doodista doorashada 2021 ajandahaas ayaa shalay loo sheegay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalku in ay maanta ka doodi doonaan warqadii saaka lagu qaybiyeyna isla ajandahaas ayaa ku qornaa yeeshee markii dambe gudoonku waxa uu soo bandhigay in doorashada xukuumaddu ay ku guuldareysatay in waqtigeedii lagu qabto iyadoo tasiilaadkii loo baahnaa oo dhan ay diyaarin isla markaana ay taasi tahay dhibaato weyn oo ku dhacday doorashada Soomaaliya markii goluhu ama gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu sheegay inay tahay maadaama xukuumaddu ay guuldareysatay in codka kalsoonida loo qaado jawigu sidan ayuu ahaa inta fiidan gacanta taaga dajiya inta ka aamusay xukuumadda kalsoonina waa lagala noqday waa dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa inuu soo dhisaa xukuumad awoodda waddanka doorasho inay gaadhsiiso kulanka annaga waa xirayahay sawaxankaas iyo buuqaas aad maqlaysaan go'aanka gudoomiyaha ka hoos baxaya waxay ahaayeen xildhibaano u sabcinayay go'aanka golahu gaaray iyo sidoo kale xildhibaano kale oo diidanaa go'aankaasi oo u badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan markii uu golaha ka baxay ayuu xafiiskiisa wariyaasha kula hadlay wuxuuna sheegay sababaha keenay in xukuumadda la rido inay kamid ahaayeen in ay qodobadan ku fashilantay diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku cadeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomida doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay haddaba sidaad maqlaysaan qodobada uu gudoomiyuhu tiriyay uu sheegay inay xukuumaddu ku guuldareysatay in ay ballanqaadyadeedii hore doorashada ku saabsanaa in ay fuliso waxa uu sheegay in golahu cod u qaaday codkaasina natiijadiisa ay noqotay sida tan gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay mala sida daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay
haddaba sida aad maqlaysaan ra-iisul wasaare gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre kalsoonidii lagala noqday sida uu gudoomiyuhuba uu sheegay laakiin xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale oo ah wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo isla golaha gudaheeda ka hadlayay wariyaashana la hadlayay ayaa sheegay in wixii maanta golaha ka dhacay aanay wax sharciyad ah haysan halkan ka cadeeyay maanta waxaa ka dhacay taariikh xumo waa maalin Soomaalida ummadda Soomaaliyeed maalin mugdo ah in maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2020 oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa ay halkan soo istaagaan in ajandada noo qaybiyeen ajandadaasna waxa ku qoran ka doodista doorashooyinka 2020-2021 ku qoran marka wuxuu alla qadir anaga waa ka doon waxaan gudoomiyaha hadal xog hoos ah helay oo in gudoomiyaha uu rabo xukuumadda inuu rido waxaana gudoomiyaha waxa rabto waa ogolnahay xukuumadda hadaa ridaysna cadeemo keen teeda kale mooshin laga soo gudbiyo dastuurku wuxuu qoraa iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo qof walba xukunka sababta uu ku weynaa ama xukunka xilka sababta loo qaadi karo dastuurku ku qoraya marka sidaa darteed wuxuu ilaah alla qadaray in gudoomiyaha maanta ayadoo hal xildhibaan hadlin oo dood la furin inuu yiraahdo xukuumadda way dhacday marka waxaan si dara ah haduu ku soo qor lahaa ajandaha ta xukuumadda cod kalsooni loo qaado ficnaan lahayd inta soo ma qorin halkan wuxuu ku yiri xukuumadda way dhacday haddana meesha isugu yeeray xildhibaanada ka wartiradooda cabdiraxmaan dhimbiil war degdeg ah oo hadda isoo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ay soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkayay midnimada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinayana awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda aasaaska u ah qarannimadeena madaxweynaha farmaajo wuxuu si degdega usoo magacaabayaa ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalkana ka saarta marxaladan kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynuhu wuxuu uga mahad celinaya ra-iisul wasaare xasan cali khayre howlkarnimadii uu muujiyey muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneyd ee uu la lahaa hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan dabcan warkaas degdega ah ayaa hadda ka soo baxay xarunta madaxtooyada dowladda federaalka haddii aan dib ugu laabano golaha shacabka iyo waxyaabihii maanta ka dhacayay wasiir maxamed abuukar islow ducaale waxaa kaloo uu sheegay in dalka ay doorasho ka dhici doonto waqtigii loogu talagalay in xildhibaanada koranku wuxuu ku furmay sidoo sheegay ma hubo aniga 128 dadka lama tirinin in wax diiday wax maxabal diiday maxabal dooda wax la diiday wax la dooda male wax diiday wax dood ma naqaanabo wax hadla male waa dhacday xukuumadda wax u qaada male cod loo qaada male lama doodin waa sharci daro hadda waa la saga diidaa waxa kaamirooyin ay jiraan dunku hormaray cadeena la rabaa inay dood dhacday xildhibaano ka doodeen xukuumadda wax lagu soo eedeeyay kadib markaas kadib codsi habsamee loo gasho marka si daraa ka dhacday ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan doorasho ay doonaa doorashadan waqtigooda ku dhici doonta haddii Allah subhanahu wa ta'ala yiraahdo marka doorasho loo diyaar garoobo maasantiin kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha isla markaana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed abuukar islow ducaale oo wariyaasha la hadlayay waxyar uun kadib markii gudoomiyuhu ku dhawaaqay go'aankii ahaa in kalsoonida lagala noqday xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre cabdiraxmaan kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo inala socodsiinayay xogtii u dambeysay ee faahfaahinta ka soo korodhay warka in kalsoonida lagala noqday xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hadaba dhageystayaal balse aan u eegno waxaanu kala soconay warkan degdega iyo taariikhan bal wixii ka soo socday muddooyinkii u dambeeyay waxa stuudiyaha ay kula sugan tiftraha laanta af Soomaaliga BBC Muxyidiin Axmed Roble Muxyidiin bal maxaynu kala soconaa arintan waa maasantahay Cabdiraxmaan muddaba warbaahinta gudaha iyo kuwa internetka iyo baraha bulshada waxa lagu hadalhayay wax uu eg xogaa isfahamwaa iyo khilaaf madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeyay ka oo loo okeysiinayay in ay salka ku haysay hanaanka doorasho ee wadanku u galayo muddadan xilligan kala
guurka markii dowladda xilligeedii uu dhammaado laakiin guuxan la xiriira in kalsoonida lagala noqdo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu xooggiisii bilowday xalay oo xildhibaanada qaarkood ay bilaabeen arrintani inay dadka uga sheekeeyaan oo ay warbaahinada qaarkood wariyaal la hadlaan iyagoo sheegaya in maxaa la yidhahdaa uu jiro qorshe la xiriiraahi in xukuumadda kalsoonida lagala noqonayo laakiin filashadu waxay ahayd cabdiraxmaanow in mooshin inta la gudbiyo laga doodi doono oo ay muddo qaadanayso hanaankani kalsooni kala noqoshada xukuumadda laakiin waxay u egtahay si degdega inay u dhacday iyadoo baarlamaanku maanta intii la ogaa iyo fahamku u ahaa inay ka hadli doonaan arrintan la xiriirta warmurtiyeedkii dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay kasoo wada saareen shirkii dhuusamareeb maalmaha uga socday ee doorashooyinka iyo xilligan golaguurka sida loo maaraynayo la xiriiray marka waxay u eg tahay arrintan kalsoonida lagala noqonayo xukuumadda marka iyadoo mooshin guddoomiyuhu horey uusan usii sheegin xukuumadda ka yaalay in la gudagalay oo codayntii sidaa ku dhacday xukuumadduna baarlamaanku sidaa codka ugu qaadeen sida hadda warkii ibraahim uu noo sheegaya degdeg ah ee soo dhacayna waxay u eg tahay madaxweynihii in uu aqbalay go-aankii baarlamaanka ee xukuumadda ay xilka uga tuureen muxuudiin dhanka kale bal waxaa lagu jira xilli kale guura waxaa la isweydiin karaa dhowaan baa dhuusamareeb laga yimi waxaa la sheegayaa in dalku doorasho geli doono xilligeedii ku dhacaysa bal arrintaa maxay ka saameyn kartaa xaaladdan markii si loo fiiriyo waxaa imaan karaya xogaa hoolihii socday inay si gaabis ugu yimaadaan maxaa yeele dowladda markan iyo madaxweynaha iyo baarlamaanku waxay aad ugu mashquuli doonaan xukuumadda cusub ee madaxweynuhu uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadda uu dhisi doono iyo baarlamaanka maxaa la yidhahdayey codaynteedii iyo maxaa la yidhahdaa kalsooni siinteedii marka xogaa meesha waxay u muuqanaysaa in dib u dhaci si u iman karayo maxaa sababtoo ah waxaa lagu ballansanaaba in la sameeyo guddiyo ka kala socdaahi dowladda kumeel gaarka xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada inay guddi soo dirsadaan guddiyadaana qayb waxaa ka noqon lahaa wasiirada xafiiska ra-iisul wasaaraha marka arrintii guddiyadaas inay dib u dhac ku iman doono ayaa maxaa la yidhahdaa iyana dhici karaysa markii si kale loo fiiriyana dad baa waxay u arkayeen maxaa la yidhahdaa ra-iisul wasaaraha xoogaa inuu u ekaa inuu isku hayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xiriirkooda iyo wuxuuda marka taana waxaa la isweydiin karaa iyadana sidee u saameyn doontaa xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey hoolihii iyo ballamihii iyo wixii lagu ballamamay sidoodii ayay usii socon doonaa mase gaabis ayaan ku imaan doona laakiin waqtiga ayaa maxaa la yidhahdaa arrintaana sheegi doona wataa xukuumaddii sida guddoomiyaha baarlamaanku sheegay madaxweynuhuna ku raacay in kalsoonidii lagala noqday maxaa xigi kara dabcan waxa ugu horeeya sida madaxweynuhu hadda warmurtiyeedka ka soo baxay lagu arki karayo waa in ra-iisul wasaare cusub lasoo magacaabo xukuumad cusub lasoo dhiso intaynaan idaacadda soo gelin xubno ka tirsan xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano iyo wasiiro aan la hadalna waxay noo sheegayeen in uu shir u socday madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale marka warmurtiyeedkan marka waxay u eg tahay xafiiska madaxweynaha in uu daba socdaahay kulankii u dhexeeyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha wixii ka dambeeyey markii xukuumadda codkii kalsoonida loo qaaday marka bal maamul goboleedyadu siday uga falceliyaan ayaa la fila doonaa iyo xildhibaanada baarlamaanka qaarkood oo u ekaa inaysan ku qanacsanayn sida wax u dhaceen wax iyaguna ay ka yeeli doonaan iyo dabcan ra-iisul wasaarihiiba kaasi waxa waad fatiriyay laanta af Soomaaliga Muxyidiin Axmed Roble oo inoo sharaxay xaaladdan halka ay ka soo bilaabantay iyo sida xaal ku dambeyn karo bal dhanka kale aynu eegno sharci ahaan iyo si guud sida ay u saameynayso siyaasadii kala guurka ahayd xilligan ay galayay dalka Soomaaliya waxaan arrintaa la falanqeeyay Ibraahim Faarax Bulsaliid oo badanaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya si dhow ula socda Ibraahim bismillaahir rahmaanir rahiim dhimbil waxaad moodaa inay ahayd arrin la sugayay hal cabaaraba khilaaf lagu guul daraystay in hoos loo dhaqo inuu ahaa si kale marka loo dhigo ra-iisul wasaaraha isagana waxaad moodaa xasan cali khayre inuu aad u fahmay danta iyo maslaxadda xukuumaddiisa laakiin uu fahmi waayey danta iyo maslaxadda xukuumadda laga leeyahay haday ahaan lahayd qaybaha kale ee dowladda haday ahaan lahaydba xubno ka tirsan beesha caalamka bal marka aynu eegno dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka Soomaaliyaba wixii maanta baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay maxay u muuqan karaan marka la fiiriyo dastuurka marka la fiiriyo xeer hoosaadka marka la fiiriyo dhaqan ahaan qaabka baarlamaanada adduunka ay u dhaqmaan midnana ku lug leh ma ahan aadna wuu u barbar socday laakiin markaad fiirisid dhaqanka siyaasadda Soomaalida iyo ku dhawaad 30 sano xeer xumada waa wax iska caadi ah asagana haddana ay la gudboon tahay inuu libinta ka xigsado wadadii kale uu qaadi lahaana uu fiiriyo xukuumaddan uu fursad u siiyo balinay wixii ay rabtay ka gorgortami karto guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu sheegay in 170 xildhibaan ay u codeeyeen in xukuumadda kalsoonidii lagala noqdo halka 8 kaliyina ay ka soo horjeesteen waxa la isweydiin karaa farqi weyn baa u dhaxeeya siday suuragal u tahay marka aynu Soomaaliya ku
ku eegno in iyadoo qodob sidan u weyn oo xasaasi laga doodayo ay tiro saa ugu badan isugu raacdo? arrinta cajiibka waxa weeyaan in ay jiraan waxyaabo badan oo la sababeyn karo. waxaa jira tuhun ah asaga iyo madaxweynuhu hal cabaaraba inay ishayeen laakiin ay ka xishoodeen inay si guud oo rasmiya banaanka khilaafkooda usoo dhigaan. waxaad moodaa xiriir hore oo aan wanaagsanayn oo guddoonka baarlamaanka kala dhexeeyay inuu qayb ka yahay. waxaad moodaa safarkiisii ugu dambeeya dooxa laftigeeda in isu soo dhaweyn badan lagu fashilmay. marka waxaad moodaa dana badan oo isdiidan in la isaga faa'iidaystay. laakiin in baarlamaanka uu xukuumadda gacanta ugu jiray hal cabaaraba may ahayn arrin sir ah. ugu dambeyn xilli kala guura baa lagu jiray, dhowaan baa laga soo noqday shirkii dhuusamareeb oo loo arkayay inuu jaangoyn doono xaaladda siyaasadda Soomaaliya. in hawl cusub soo korodhay oo xukuumaddii dhammayd imika la leeyahay kalsoonidii baa lagana noqday. arrintaasi maxay ka saameyn kartaa xaaladihii socday? wax badan waxay ku xiran yihiin sida ra'iisul wasaarihii hore uu arrinta u qaabilo. haddii uu aqbalo in sidaas uu ku tagana inuu isagu wadadii kale uu mari lahaa uu sii jihaysto, xukuumaddan uu fursad u siiyo bal in gorgortankeedii ay sii wadan karto. haddii uu kasoo horjeestana waxay noqon doontaa maadaama aanay maxkamad dastuuriya jirin in faragelin beesha caalamka ay soo dhaweyn iyo gorgortan kale hoosoo soomaalinimo dib loo maro. laakiin si kastaba waxaad moodaa inay mugdi yar oo kale ku ridi doonto hanaankii socday ee loogu ballansanaa in 2 toddobaad gudahood dib la isugu soo noqdo si la isula fiiriyo guud ahaanba xaaladda dalka, si gaarana doorashooyinka qaranka ee la filayo horraanta sanadka dambe. kaasi waxau ahaa Ibraahim Faarax Bursaliid oo inoo falanqeynayay bal halka xal ku dambeyn karo iyo si guur sharci ahaanta wixii maanta ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada. haddii aad faalo qabtana commentiga hoose